بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب بيال جمعة وناكسنا هالكني وارون شيك تي في وبرتاني يوتيوب ككلنا صاحب بيال قد بدأ أجوا وين عن وركيدن كوها هنا وحا كمينا مقالة بوساسو لقد دريم يدق دقاقية عيدا ويسكسو هرجيدا حل حيسد مقالة أي فراها كسي بحيس سردونك Soomaaliya oo ogaaday shakhsiyaad dalka ku sugan oo gacan saar la leh kooxda TPLF xafiiska ra'iisul wasaare Roble oo hanjabaad hawada u mariyay mucaaradkii oo qoys taagan qodobadaas iyo qodobo kale ayaan saaxiib yaalidiin haynaa fadlan haddii aad nagu cusub tahay waxaan si naxariis la kaaga codsanaynaa inaad subscribe inoo saadho like-na ay nagu dhiirigelisaan insha Allah saaxiib yaal sida hordhaca warkayga baad ku daawateen magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda xilli ay xiisada magaalada faraha ka sii baxayso wararka naga soo gaaraya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sheegay in maanta halkaasi ay ka jiraan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo sameynayaan ciidamo ka amar qaata madaxweynaha Puntland Said Abdullahi Deni iyo ciidamada PSF ciidamada dhaqdhaqaaqyada ciidan wada ayaa kala ah ciidamada badda Puntland BMBF oo agaasima ku-xigeenka oo Said Deni u magacaabay xilka lagu wareejiyay 27 November iyo ciidamada PSF ee ka hor yimid xilka qaadistii lagu sameeyay agaasimahooda Said Abdullahi Deni ayaa si cad u sheegay in ay ka go'an tahay in ay xilka wareejiyaan agaasimaha PSF iyo in uu soo afjari doono in ciidamada Puntland ay hoos tagaan shakhsiyaad hadalkaasi iyo ciidanka oo dul dejiyay xiriyaha ciidamada PSF ayaa xoojinaya dhaqdhaqaaqyada labada dhinac sida ay dadka deegaanka inoo xaqiijiyeen waxa magaalada lagu dhex arkayaa ciidamo badan iyadoo cabsi weyn laga qabo dagaal dhex mara ciidamada Puntland ee Said Deni la safan iyo kuwa PSF waxaa socda dadaalo lagu doonayay in lagu baajiyo dagaalka balse xogta aan helayno ayaa sheegaysa in labada dhinac ay diidan yihiin wada hadal isla markaana ay xal u arkaan in dagaal lagu kala baxo isimada ayaa kulanka la qaatay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda kuwaas oo qayb ka ahaayeen wasiirka amniga Puntland oo kol hore hanjabaad culus wada u mariyay ciidamada PSF waxaana lagu wadaa in saacadaha soo socda ay la kulmaan dhinaca hay'adda PSF xiisadii maalmahan u dambeysay u dhaxaysay ama ka dhaxaloosneed madaxweynaha Puntland Said Abdullahi Deni iyo agaasima Diano ayaa waxay si weyn u saameysay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari oo ah magaalo ganacsiyeed ay ku nool yihiin dad badan qodobada kale aan saaxiib yaalidiin haynana waxaa kamid ah sirdoonka Soomaaliya ayaa ogaaday shakhsiyaad dalka ku sugan oo gacan saar la leh kooxda TPLF ee dagaalka kula jirta dawladda federaalka Itoobiya saraakiil kamid ah qowmiyadda Tigreeg Itoobiya ee dagaalka kula jira dawladda dalkaasi ayaa ku sugan Soomaaliya si gaar ahna ugu xiran jabhadda TPLF sida ay ogaatay dawladda Soomaaliya mas'uuliyiin dhinaca ammaanka ayaa warbaahinta u sheegay in hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka NISA ay heleen xogo saraakiisha TPLF ee gudaha dalka jooga madaxa mukhaabaraadka sirdoonka Soomaaliya ahna taliyaha dabagalka NISA Cornel Cabdullaahi Daahir oo Cabdullaahi Dheere ku magac dheer ayaa si gaar ah isaga iyo saraakiil hoosaga waxay diiradda saareen u kurgelidda xogta saraakiil jabhadda TPLF ee Soomaaliya joogta toosna ugu xiran kooxda dagaalka ka wada dalkaasi ila wareediyo lagu kala soonaan karo ayaa soo warinayeen Cornel Cabdullaahi Dheere oo helay dukumeenti iyo qoraallo ay saraakiisha TPLF Soomaaliya joogta direen iyo codad xiriir ay la sameeyeen kuwooda dagaalka kula jira xukuumadda uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed xubnaha Tigreeg ee xogtooda la helay sirdoonka Soomaaliya ayaa ku sugan dalka gaar ahaan qaybo kamid ah gobolka Bay iyo Gedo iyadoo suuragal tahay in arintani ay keento tallaabo laga qaado saraakiishaasi ciidamada ka socda dawladda Itoobiya ayaa sanado badan ku sugan Soomaaliya iyagoo kamid ah howlgalka AMISOM balse dhinaca kale in howlgalkani uu saameyn ku yeesho dagaalka Itoobiya ayaa ahmid keeni karta xaalad kale sida ay qabaan khubarada dhinaca ammaanka Cornel Cabdullaahi Dheere oo kamid ah xubnaha ugu awooda iyo dhaqdhaqaaqyada badan sirdoonka Soomaaliya sanadihii u dambeeyay ayaa si gaar ah la sheegay in uu uga hortagay falal ay gudaha Soomaaliya ka sameyn lahaayeen kooxda TPLF ee dagaalka kula jirta dawladda Itoobiya saraakiil ka gaabsaday in magacooda la adeegsado una dhow Cabdullaahi Dheere ayaa tilmaamay in taliyaha dabagalka uu tagay qaar kamid ah xiriyaha ciidamada Itoobiya ee gudaha Soomaaliya balse lama oga hadii uu jiro xiriir toos ah oo NISA iyo taliska Abiy dhex maray
wararka qaar ayaa sheegaya in saraakiisha la ogaaday in ay kooxda TPLF ka tirsan yihiin iyagoo jooga Soomaaliya ay suuragal tahay in shaqada laga joojiyo lana ciqaabo waxaana Korneyl Cabdullaahi Dheere la ogyahay inuu xiriir adag la leeyahay sirdoonka caalamka sida CIA Mareykanka iyo dowlado kale dagaalkan ka socda Itoobiya ee jabhadda TPLF kula jirto dowladda ayaa maalmihii u dambeeyay aad u sii xoogaysay waxaana ku biiray oo safka hore ee dagaalka jooga Abiy Ahmed saacadihii u dambeeyay waxa uu sheegay in ay adkaadeen ama ay ka adkaadeen kooxda ay dagaalka kula jireen ee TPLF xafiiska ra'iisul wasaare Roble ayaa hanjabaad hawada u mariyay mucaaradka dowladda waxaana hawshii ku adkaatay mucaaradka afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallim ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku sheegay in ra'iisul wasaare Roble aanu shaqo ku lahayn sixitaanka qaladaadka doorashooyinka balse hawshaasi ay u taala guldi loo xil saaray Macallim ayaa sheegay in Roble ay ka go'an tahay inuu ka shaqeeyo in la dhowro hufnaanta doorashada balse aanu ahayn garsoore sari la dhex taagan oo kiis walba laga doonayo inuu gaaro xalkiisa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa ka go'an isaga oo kaashanaya golaha wadatashiga qaran in la dhowro hufnaanta doorashada waana sababta uu had iyo jeer guddiga kala duwan ee doorashada iyo guddiga xalinta khilaafaadka kulamo ula yeesho uga adkaynayo in ay doorashadu u maamulaan si hufan ayuu yiri afhayeenka xukuumadda doorasho marka la fulinayo waa xaqiiq in ay cilad la soo baxdo balse haddii ay qalad dhacaan waa in sixitaankooda loo maraa hab waafaqsan abraaca doorashada ee aysan noqon mid caadifad ku dhisan waana awoodda iskale guddiga u xil saaran hawshaasi ra'iisul wasaaruhu ma ahan garsoore sari la taagan oo kiis walba laga doonayo inuu xaliyo Macallim ayaa intaasi ku daray in doorashadu ay qabsoonto ay tahay xalka kaliya ee dalka uu uga gudbi karo marxaladda uu maanta ku sugan yahay sida uu hadalka u dhigay hadalkan ayaa imaanaya iyadoo golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ay sheegeen in hanaanka ay doorashadu u socoto uusan ahayn mid hufan iyagoo sheegay in waxa socda uu yahay boob amaba ay ku tilmaameen sida ay u arkaan inay tahay doorashadu mid boob ah balse waxa xusid mudan in ay iyagu doorteen doorasho dadban midowga musharaxiinta ayaa bayaan ay soo saareen 3 November ku cadeeyay inuusan raalli ka ahayn aqbalayn qaybna ka ahayn boobka socda ee lagu dibindaabaynayo shacabka Soomaaliyeed laguna burburinayo geedi socodka nabadda iyo dhismaha dowladnimada waa sida ay warqada ay soo saareen ku qoreen midowga musharaxiinta ayaa sidoo kale qoraal ku sheegay in Roble ay ka dalbadeen in la joojiyo doorashada balse uu ku gacan sayray taasoo ku qasabtay in ay si shacab baxsan u dalbadaan in la kiyo doorashada guddiga doorashada ayaa iyaguna dhankooda sheegay in ay doorashadu ay ku socoto si habsami leh iyo habraaci loogu talagalay isla markaana beeniyeen in uu jiro wax boob ah waa hagaag saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa warkii aad ka daawanaysay Runsheeg TV fadlan haddii aad nagu cusub tahay waxaan si naxariis la kaaga codsanaynaa inaad subscribe inoo saadho like na ay nagu dhiiri